munaasabadani oo ahayd mid ay soo agaasimeen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Berbera ayaa ahayd mid lagu taageerayo isuduwaha cusub ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka Saaxil ee uu dhawaan wasiirka wasaaraddaasi u soo magacaabay. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah bulshadii ka soo qayb gashay munaasabadaasi iyagoo hambalyeeyay isuduwa Farxaan. dhammaantiinba waxaan leeyahay insha Allah waa bogaadinaynaa waa soo dhaweynaa kulli xalfadii dambe way noo dambaysaa tani waxa weeye waa soo dhaweyntii dhammaantiina waa mahadsantihiin. waxaan ku faraxsanahay inaan ku garab taaganahay oo kula shaqeyn doono haddaad shaqaysana aan ku amaan doono haddaad shaqeyn weydana aan ku caanan doono. marka hore waxaanu leenahay Ilaahay ha kuu fududeeyo xilkaas oo runtii ha kaaga dhiga mid fudud oo bulshada ugu shaqeeya muxuu ahaay daacad iyo hawlkarnimo iyo muxuu ahaayay iyo mas'uuliyadba. isuduwa Farxaan waxaan leeyahay hambalyo waanu ducaynaynaa xilma kala qaado hawl yar maaha in la isku duceeyaa fiican oo Ilaahay ku asturo way wax la weydiinayo way inaga mas'uuliyad bataymka badigeena intaan ama isduwaashaana ama inta mas'uuliyiinta kan jooga inaga mas'uuliyad badan yahay wax birisaga la weydiinay bulshada dhan loo soo magacaabay wixii loogu diray waa la weydiinaya marka waxaan leenahay Ilaahay ku fududeeyo. waxaan aaminsanay magacaabista wasiirkani in shaqadii hore ee uu magaalada Berbera iyo guud ahaanba gobolka Saaxil uu ka hayay in shaqadii uu loo soo sharciyeeyay marka horeba uu ahaa nin maxay ahaydey dhalinyarada dadka jilicsan cid kasta ka warhaya. waa inaad iska ilaalisid xanuunka inahaya ee saradaanka ah ee qof kasta ku jira mala garan maysaana waxa way qabiilo waxaan leeyahay marka koowaad hambalyo positionkaagii marka horeba aad haysay unba hadda lagu dhiibay xilkaagii unba mar labaad lagugu celiyey oo waxaad haysay in badan baynu ka wada shaqaynaynay maxay tolay danyarta hadday dayarkaab tahay hadday masaakiin tahay hadday danyarta magaalada iyo wax kastoo arrimaha bulshada hadday naadiye tahay in badan baynu kasoo shaqaynaynay waan kugu hambalyeynayaa jaranjartii aynu haynay unbaad kor noogu dalacday. waxaan leenahay hawshii aan kaaga barano ma ka sugaynaa iminkana bulshada si weyn buu runtii ugu dhex jiray shakhsi tilmaaman buu ahaa iminkana waxaan rajaynaynaa inuu dawladda ka dhex muuqdo halka ay meel ka sarreysaan ku rajaynayaa. waxaan ku soo ururin doonaa maqsadka xafladan oo ah inaynu u duceyno soo dhaweyno bogaadino isduwaha cusub ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Farxaan Maxamed Xasan Rakad oo runtii ah shakhsi aad u karti badan. waxaan leeyahay rakaal waxa loo ku maasan tahay waxa loo baahan waa nin qabiile maaha runtii sida odagu ka hadlayay nin qabiile maaha ana marxaati ka isuduwaha cusub waxaanu leenahay kolay Farxaan gobolka kuma cusba shaqadana kuma cusba oo wasaaraddan hore uga shaqayn jiray oo uu shaqaale ka ahaa laakiin waxa uu ku cusub yahay teetalka markaa teetalkan ku soo dhawanaynaa. ugu dambeynna isuduwaha cusub ee wasaaraddaasi Farxaan Maxamed Suldaan oo isagoo halkaasi ka hadlay ayaa ka mahad celiyay dadyowgaasi ku taageeray xilka cusub ee loo soo magacaabay. oo haddii aan la wada shaqayn waxa ma hagaagayaan laakiin waxaan rajaynayaa in idinku dhalinyaro ahaan fikir la naga heli doono talo la naga heli doono wasaaraddu ay mar walba inuu furan tahay albaabkeedu oo la soo dhaweyn doono. runtii mahadnaqaygu waa mid aan afka ka oran karin waa mid aan soo koobi karin waa mid aan qiyaasi karin sida waqtigiisu siiseen iyo sida maamuusteenba Ilaahay ni maamuuso.